kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta wararka warbixinada diblomaasiyadda maqal media group. daawadayaal kusoo dhawaada falanqayntaas xasaradaha baahan ee ka taagan koonfurta iyo waqooyiga Korea taasoo dunida idil isha ku haysa maalmihii ugu dambeeyay. hogaamiyaha koonfurta Korea ayaa Mareykanka ka dalbaday hubkiisa waxgumaada ee nuclear-ka taasoo Mareykanku hadda u qaadanaya xeelarayaashu amba siyaasiyiinta waaweyn ee dunida ay sheegayaan in uu soo degdegi karo dagaal faraha looga gubto. dowladaha gaashaanbuurta NATO ayaa iyo xeelarayaal sarsare oo wareystay TV-ga Al Jazeera ayaa sheegay inay Mareykanku uusan ku degdegin arrintaas taasoo Amerika ay halkaas ay xulafo dhow la tahay koonfurta Korea halka waqooyigana ay Mareykanku u yahay cadowgooda koobaad. Amerikaanka ayaa sanadii ugu dambeeyay cunaqabatayn iyo cadaadis baahan ku hayay waqooyiga Korea halka Japan iyo koonfurta Koreana ay hayaan saaxiibada gacanka ayaa xiisadii ugu darneed ay ka taagan tahay kadib markii hogaamiyaha Koreada uu sheegay inuu ka dalbanayo wadanka Mareykanka in uu taageero dhinaca hubka nuclear-ka. Washington ayuu sheegay inay si degdeg ah u haleeshay codsiga ka yimid hogaamiyaha wadanka Korea. Washington ayaa looga digay inay ku dagaalanto arrintaas taasoo keeni karto dagaal weyn oo dunida harqiya sida ay xeelarayaashu sheegayaan. koonfurta iyo waqooyiga Korea ayaa cadow weyn taasoo markii hore sida la sheegayo hal dowlad ay isku ahaayeen kala jaritaankooda Mareykanku halkaas soo degay ayaa cadow ballaaran ay soo noqdeen. hogaamiyaha awoodda badan ee waqooyiga Korea Mr. Kim Jong Un ayaa sheegaya mar waliba inuu cagta mari karo wadamada Japan iyo koonfurta Korea taasoo ku macneeyay inay cadowga dalkiisu ay yihiin kuwa jilbaha amba lugaha ku aastay koonfurta iyo wadanka Japanba taasoo sheegay markasto inuu talaabo military uu ka qaadi karo dalalka dabadhilifka mar waliba soo horkaca sida uu ku tooqay. hogaamiyahaas ayaa sanadihii ugu dambeeyay teknolojiyad casri ah ee khubarada wadanka waqooyiga Korea faraha ugu gubteen. dalkaas ayaa noqday dalka ugu teknolojiyadda iyo hubka casriga soo saara taasoo dunida inteeda kalena ka go'doosan kadib markuu dowladda Mareykanka ay jilbaha dhulka ugu dhifatay geedna ugu xirtay dunida inteeda kale. Mareykanka ayaa isha ku haya dhaqdhaqaaq kasto ay sameynayso waqooyiga Korea balse ka gaabsaday inuu awood military oo isticmaalo taasoo ay marar badan ay sheegeen haddii militariga Mareykanku ay galaan halkaas oo dagaal faraha lagu gubta dhici karo. madaxweynaha waqooyiga Korea Kim Jong Un ayaa sheegay inuu dalkiisu uu meel kasta amba buqca kasta ka tirsan wadan dhulweynaha waqooyiga Korea ay yaaliin gantaalada qaarad isaga kala doosha taasoo uu sheegay inuu Mareykanka oo gudihiisa uu cagta mari karo sida uu in badan ku tooqay. Kim Jong Un ayaa ku celcelinayay sanadihii ugu dambeeyay amba bilihii ugu dambeeyay inuu dalkiisu kor u qaadi doono teknolojiyadda hubka casriga taasoo uu sheegay inuu uga dhigantahay dalkiisa haysashada hubka nuclear-ka iyo gantaalaha intercontinental ballistic missile inuu cadowga dalkiisu ay ka cabsanayaan sida uu sheegay. wuxuu ku cad ku maray inuu sii kordhi doono awoodaha ciidankiisa iyo hubka khubarada dhinaca hubka farsamada ee gantaalada halista badan ayuu ugu baaqay hogaamiyaha awoodda badan ee waqooyiga Korea Kim Jong Un inay xil iska saaraan gantaalada baahan ee wadankiisu ku yahay qani ay uga dhigaan sida uu ku celcelishay. waqooyiga Korea ayaa u muuqata mid sanadka ka dambeeya hubka casriga farsameynaysa taasoo dowladda Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka ay geed uga xireen dunida inta kale. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa saaxiibka dhow ee waqooyiga Korea hogaamiyahooda Kim Jong Un. dalalka Ruushka amba bariga adduunka ayaa u arkaa meel ay reer galbeedka ay ku dhangadeeyaan dalka waqooyiga Korea. Shiinaha iyo Russia ayaa u arkaa dal ay khatar ku geli karaan amba ku qalqali karaan reer galbeedka. wadanka waqooyiga Korea ay xiriir dhow la leh Shiinaha iyo Russia balse dunida inta kale mid
aysan xiriir ka dhaxayn. Labada dowladood ayaa u heesta wadankaas mid ay ku garaacaan dalalka reer galbeedka iyo maslaxadahooda guracan. Hogaamiyaha Waqooyiga Kuuriya ayaa sheegay beentii iyo mala'awaaska ay dalalka samay jireen sanadihii ugu badnaay ee taariikhda cusub inay soo afjarmo haysto siduu ku celceliyey. Dowladaha Waqooyiga iyo Koonfurta ayaa jiray hal dal, balse dowladii Mareykanka iyo dowladaha reer galbeedka ayaa kala jaray kadibna la saftay dhinaca Koonfurta, halkaas oo hadii hubka nuclear-ka Mareykanku uu geeyo dalkaas ay ahaa karto meel ama mar waliba oo dagaalku hubka nuclear-ka la soo adeegsado uu ka qarxi karo sida xeeldeerayaashu sheegayaan. Dadka u dhashay dalka Koonfurta ayaa sida badan waxa la sheegay inay isaga carareen halkaas, taasoo ah in ay hogaamiyaha awoodda badan ee Waqooyiga Kuuriya inuu hubka nuclear-ka oo mar waliba u adeegsan karo wadankooda, taasoo uu ku qasabtay madaxweynaha Koonfurta inuu Mareykanka ka dalbado in uu ka taageero hubka nuclear-ka. Khubarada wadankiisana loo tababaro iska caabinta hubka waxgumaada ee dunida sida baahan ay uga qaylisay. Hogaamiyahaas ayaa sheegay inay Mareykanku iyo Waqooyiga Koonfurta Kuuriya yihiin dalal saaxiibo ah oo xulafo ah. Cadowga Waqooyiga Kuuriyana ay tahay meel ay mar waliba doonayso inay ka dhibaatayso sida uu sheegay wadankiisa. Dowladaha dunida oo idil ayaa isha ku haya dhaqdhaqaaqa foosha xum ayuu yiri ee Waqooyiga Kuuriya ay ka wado. Waqooyiga Kuuriya ayaa bilihii ugu dambeeyay u muuqatay mid dansanayso dalalka deriska la ah Japan iyo Koonfurta Kuuriya. Sii horeyso 2 maalin ka hor ay ahayd inay gantaale 3 ku garaacday xeebaha wadanka Japan. Japan ayaa arrintaas aad uga careysiisay. Japan ayaa doonaysa inay hubkeeda ay jallaabato iyo tiknoolajiyadda casriga ku tahay iyaduna, taasoo Mareykanku horay oo jilbaha dhulka ugu dhiftay kadib markuu hubka waxgumaada ee nuclear-ka u adeegsaday wadankaas sanadku markuu ahaa 1940, taasoo dagaalkii labaad ee dunida uu ka jiray, halkaasoo awoodii badneed ee wadanka Japan iyo boqortooyadii dunida oo idil jilbaha dhulka ugu dhifatay Shiinaha oo Mareykanku soo afjaro maalin cad, taasoo wixii ka dambeeyay Japan ku qasabtay in ay noqoto dal aan haysan military amba hub waxgumaada ee nuclear-ka. Dalalka reer galbeedka ayaa isha ku hayay dhaqdhaqaaqeeda wadanka Japan, taasoo u saamix weysay inay samaysato hub, balse bilihii ugu dambeeyay sanadii ugu dambeeyay ayaa la isugu tookhayay hubka waxgumaada ee nuclear-ka, gaar ahaan Waqooyiga Kuuriya oo aad u danaynaysa inay hubkaas ay kor u sii qaado. Waqooyiga Kuuriya ay ka go'an inay ku cabsi geliso dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka xulufada la ah hubkeeda waxgumaada ee nuclear-ka, taasna ay u sheegtay inay u haysato wax iska dhicin. Daawadal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Amaano Allah.